nin dhakhtar aha maalmaha ka mida ila soo xiriiray way soo wacay wuxuu igu yiri dad ganacsato ah ayaa guri weyn kireystay ayaguna cilmiga waxba kama garanayaan uu yiri ilaa waxay ka rabaan meeshooda inay ribix iyo faa'iido ka helaan waa qalabeeyeen gurigii qalabkii loogu tala galay caafimaadka oo dhan ay u dhameystireen aniga iyo dhakhaatiir kale ay kontrakti nala galeen waxba ayaan kala saxiixanay agreementii aan kala qaadanay boqolkiiba 30 ayaa heshiiska kamid ahaa uu yiri qofkii aan u dirno baaritaan iyo shaybaar inaan anigu ku leeyahay shakhsiyan hadii qofka dhiig aan u diro haddaan computer qofka aan u diro baaritaanka nooc walba uu ka mid yahay noocu doonaba ha noqdo haddaan qof u diro heshiisku wuxuu ahaa boqolkiiba 30 inaan anigu yeelanayo saasan ku heshiinay waxa marka dhacay uu yiri qof ay imanayo yiri bukaan qof aha ay imanayo mar rabo ninka magaciisa inaan sheego qof bukaan ay imanayo markaas wuxuu leeyahay yiri xalay suulkan aan ka seexan waayay suulkan ayaan xalay ka seexan waayay masuulkaad ka seexan weyse iskaan u qorayaa iskaan ayaan u qorayaa oo laga yaabo $100 inuu ka bato dhiigaga waxaan u dirahayaa hawir beerka kaliyaha laga soo baaran leeyahay waxaan u dirahayaa hawir qarash hadafkayga inuu waxay tahay ula jeedadayga commissionkayga aan ku leeyahay isbitaalka inuu ziyaado oo uu kordho waan ogahay uu yiri ninkan miskiinka suulkiisa waxa daaweynaya waa $15 iyo $20 wax la mid daninka khayr Allah siiyo runtu iska sheegay kuwa aan runta sheegayna jiro ummadda sidaas u galaya oo u dhibaateynaya waaba nin xalaal miiranaya waa nin iimaan leh ilaahay ha u barakeeyo cilmigiisa waanaga ha yiri $15 iyo $20 ayaa daweynayo yiri miskiinkaas markaas waxaan gelinayaa uu yiri baaritaan 150 ilaa 200 ka talaabsanay daawadiina ay u sii dheeraatahay wax yar oo basiiduna ila yimid cudur yar oo basiid oo ishay wuxuu yiri wadaadow xalaal ma tahay yiri lacagtaas aan sida ku qaatay lacagta sida aan ku qaadanayo xalaal ma tahay waxaan ku yiri waa dulmi waana khiyaano miskiinkana waa dulmisay وانا خيانتي لأنه أديقو قرش وكمار مكره ووحباهيو هده وضرورية وهيس أي سنجرين أديقو أياد مصلحة هذه كفير ستي مصلحة هذه يجيب كاقونو حوغا كردو أياد كفير ستي وحرام وتسألوينك كدعي وضن كان ظلمك marka dulmiga walaalayaal waa waxa nabaday ama dadka ganacsatada ha sameeyaan ama dhakhaatiirta ha sameeyaan ama kuwa dhiiga xaq darrada daadinaya ha sameeyaan ama qofka shakhsiga ah dulmi uu ku sameeyo deegaankiisa ha noqdo waa kuwa waxa nabaday ishan xun nabaday oo hadda aanu u naalno ilaa adduunyada aanu ka noqonay mathala suu tusaale xun in loo soo qaato oo qofkii markii la doonayo in qolo ay burburto la yiraaho war Soomaaliya oo kale ha noqonina Soomaaliya oo kale yaani caalamkii waxaanu noqonay tilmaan xun kasta qofkii sameynaya inuu Soomaaliya u soo qaato darxumada markaas inagu aanu ku jirno